tira lagu qiyaasa in ka badan 100 kun oo gaadiidka noocyadiisa kala duwana isla markaana isugu jira gaadiidka dawladda kuwa shacabka iyo sidoo kale kuwa hay'adaha caalamiga marka laga imaado tira kooban oo talac gaabtay marka la eego taariikhda iyo sidoo kale muddada ay shaqaynayeen waa kuwa sahla in si fudud shacbigu isaga kala gooshaan magaalooyin iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ay dana gaara ka leeyihiin waxaana taariikhda markii ugu horeysay deegaanada Soomaaliland xilligan soo food saaray hakad xooggan oo ku yimi gaadiidkaasi iyo sidoo kale shacbiga ku adeeganaya gaar ahaan gaadiidka yaryar ee nooca raaxada ee isticmaala shidaalka batroolka waana tasaamaxday in xilligan si weyn ay u buuxdhaafaan garashada iyo sidoo kale goobaha lagu hagaajiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan halkaasi oo xilligan lagula tacaalayo xaaladooda farsamo itiinada iyo sidoo kale taangiyada shidaalka gaadiidkaasi kadib markii sida la tilmaamay Soomaaliland gudaheeda xilligan soo gaadhay shidaal tayadiisa si weyn looga deeriyay isla markaana saameyn xooggan ku keenay gaadiidka yaryar ee isticmaala batroolka haddaba si aan xaaladan ugu kuurgalno waxaan xilligan soo booqanay mid ka mid ah garashada xilligan lagu farsamaynayo iyo gaadiidkaasi injineer deeq waa farsamayaqaanka guud ee isla garashkan waxa uu iiga waramay marxaladda xilligan iyo sidoo kale qaabka ay ula tacaalayaan iyo waxa soo kordhay hadii aan ka warramo shidaalkan imika magaalada aad u saameeyay siiba caasimadda khaasatan ku ah wallahi aad iyo aad bay dadkii shacabka ay baabuurta watay waliba yaryar ee dhiisa shaanahayna batroolka ahaa aad bay ugu dhib badan tahay marka baabuurta hawada saameeya batroolku laakiin qaar baa aad iyo aad dhibtiisu ay ugu weyn tahay waana baabuurtan hadii jeerama kana du taaganahay ee leeyahay marka 210 baa leeyahay iyo fareesada gaariga leeyahay iyo fitista waayo baabuurta kale xaggan systemka batroolka uu soo marayo ayay yar kala duwan yihiin marka baabuurta dhibta badan imika hadda uu sii geystay waa kuwaas marka imika weegan ugu dambeeyay bishan waxaanu ka shaqeynay shaqada noogu bandaydaanu ka shaqeynay waxa weeyaan cilada batroolka oo sababay batrool xumidu marka kaalmihiina waa isku wada mid kaalinta ma tilmaami karno oo kaalin heblaaya ma oran karno laakiin shidaal ka wada yimid dekada buu noqday berbera marka wallahi saameyn badan buu ku yeeshay dadkii shacabka waayo qofkii intuu kaalintii soo galo ayuu shalay tir ka shubnaa 5 litir waxay kharash garinayaan lacag ilaa 300 marka shalay iyo doraad imika halkan geerishka waxa yaala kan aan dul taaganahay imika kan iga horeeya iyo qaar kale badan imika halka yaala oo kabarda ku qaban doono marka shidaal xumadaas aad u saameysay wadanka midabkiisa batroolka yar fiican marka eegto cadaan baa ku jira laakiin kan dhoobo wax la yiraahdo iyo biyo ayaa isku dhex jira marka casaan dhoobo wata iyo biyo ayuu iyo xabag wax la yiraahdo ayaa lagu garan karaa oo kii midabkiisa aan ku tusay markii talaalka caagada ku jiray darawalo fara badan oo gaadiidkan yaryar iyagu ku shaqeysta iyo kuwa kale oo danahooda ku fushada ayaa xilligan la itaal daran marxaladda soo wajahday sida uu ii sheegay mid ka mid ah dadkii xilligaasi gawadhidooda looga shaqeynayay isla garashka badan buu shidaalkii xumaaday nagu keenay waxa weeyaan maxay hayday kaalin kasta oo tagta maxay hayday shidaalkii waxa koranaysaa anaga shidaalkii saxda ah weeyaan kaalinta kale weeyaan tii kale marka tagto waxa koranaysaa tii taa kale weeyaan waxa weeyaan dhibaato badan baa naga soo gaadhay imka ilaa xalay ilaa saaka waxaan ku soo noqonay geerashka gaarigii baa laga shaqeynayay cilado badan buu keenay dhibaatada weeyna waa shidaalka oo shidaal biyo caadi ah oo dadku ma dareemayso oo hatta urtii badnaan lahayn oo biyo aad moodo ee magaalada soo galay dawladuna inay wax ka qabato weeyaan oo iyada mas'uuliyadeeda shaybaarkii cusbaaya la keenay lahaa wax lagu baarayaa shidaalka ama shidaalka la keenay waxa weeyaan kuwii baa fail garoobay marka waxaan leeyahay dawladda wax ka qabta imika waxaan wadaa inaan gaariga iska dhigo maadaama aan gaariga sii wadan karinba imika marka laga shaqeeyo waxaan isleeyahay gaariga iska xiree wallahi dhaqaale badan baa iga baxawana soo koobi karin wali hadda uu socdaayo maalinba kolba wax baa leeyahay waxaas laga bedelayaa marxaladan adag maaha mid kaliya ku kooban shacbiga danyartay markoodii horeba si weyn ula tacaalayay sicir bararkii sidoo kale abaarihii daba dheeraaday ee saameynta ku keenay deegaanada Soomaaliland waa mid ay kala simeeyeen mas'uuliyiinta dawladda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta asxaabta siyaasadda sida uu ii sheegay Yuusuf Kaysa Cabdilaahi xogayaha warfaafinta xisbiga Wicid oo aan saaka cabaarastidii subaxnimo ku booqday xafiiskiisa isagoo xilligaasi markii labaad gaadhigiisa lagala tacaalayo marxalad shidaal xumo oo soo food saartay waxaan ka hadlaynaa dhibaato jirtay in muddo ah oo shacbigu ay aad uga qaylinayeen taasoo annagu aan 2 sano ka hor xisbi ahaan ka hadalay oo aan warmurtiyeed ka soo saarnay dhibaatadaas waxa weeye dhibaato xagga shidaalka ah shidaal tayo xun oo xabag leh wasaaraddu waxay tiri saaka markay hadashay guddi baan u saarnay wax alla waxay soo kordhinayso guddi waxay noogu filan guddidii loo saaray sixir barar arrintan haddaba guddigu way baahnayne waxay ahayd in wax laga qabto waxaan u baahannahay in la sameeyo guddi la xisaabtama oo la xisaabtama shacbiga
oo magdhow la weydiiyo shirkadii shidaalka keenay magdhow reeraan maanta dabka shidan oo gaadhi yar loogu shaqayn jiro gaadhigii yar ay jiinkii laga dhigay dadkaasaan doonayaa maanta inaan u hadlo dadkaa ma qancinayso guddi baan u saaray waxa qancinaysaa magdhowna waan ku siinay shirkadii waxaa keentayna talaabaanu ka qaaday aad iyo aad baan uga xunnahay waana wax aada looga naxo hadalkaa ka soo yeedhay wasaaradda waxay ahayd arrintani arrin u baahan in wax laga qabtay may ahayn arrin guddi loo saaro may ahayn oo shirkadaha qaar baaba wasaaraddu way og tahay imika shirkadda waxaa keentay ee ku shubtay shidaalka haamaha iyo kaalmaha way og tahay mar haddii guddidaa la soorayna waxa weeye shacbiga wax allaaliya wax idiin soo socdaa ma jiraan weeye wax allaaliya wax idiin soo socdaa daba shacbiga waxaan ugu baaqayaa saaka oo aan leeyahay ninka gaadhigiisa shidaalkaa lagaga shubow garsoorka u dacwood uga wareegnaynu tijaabinay iyagana garsoorka mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan ayaa si weyn uga gaabiyay arrintan si ay wax uga qabtaan waana tasaamaxday in maanta muddo ku siban 10 cisho kadib mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga oo kuwa u xilsaaran ay soo saaraan guddi ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo ka howlgelaya baadhidda sababta shidaalkaasi u yimi taariikhan marka la eego bishii August sanadii 2015 ayay ahayd markii xukuumaddii hore isla xisbiga kulmiye ka dhalatay ee uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu ku wareejiyay maamulka haamaha shidaalka magaalada Berbera shirkado gaar loo leeyahay iyadoo xilliga ka hor gacanta ay ku haysay dawladda marka laga yimaado intii ka horeysay sanadii 2010 oo waqtigaas ay maamuli jirtay shirkadii Total oo inta badan si weyn loo mahadiyay shidaalkii xilligaas ay keeni jirtay Somaliland waxaana xusitaankeeda gaarka ah mudan in xilligan laab xukuumaddii hore ay tilmaamtay in la keenay haamaha shidaalka Berbera aan la garanayn ilaa hadda halka uu ku dambeeyay maadaama oo shidaalka tayadiisa xilligan laga dayrinaya aanu ka soo gudbi karin sida ay qabaan aqoonyahanno badan oo ku xeel dheer cilmiga shidaalka Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa